kulan wacan asxaabta youtube-ka ku taxan soo dhawaada mar kaleeto iyo muuqaal cusub caashcaagane haddii aad channelka ku cusub tahay fadlan subscribe ha ka iloobin saaxiibada kale iyaguna channelkayga kamidka ah aad baan idinku mahad celinayaa share comment like iyaduna waa iska bilaash subscribe-ka gableelka fur waxyaabo badan oo ku anfici doona ayaa channelkayga kala socon doontaan hadduu alla idmo mar walba waxaa idinla jecel lahay wanaaga iyo waxtarka waxa leh maanta waxaa ii marti ah qof qaali ah abwaan baashi qaran kusoo dhawo channelka caashcaagane caashwaad mahadsantahay waan ku dhawaa waa tahay mar walba saa idinku sheegay barnaamijyada aan ka hadlo arrimaha bulshada ayay u badan yihiin mawduuca aan ka hadlayo wuxuu ku saabsan yahay ragga iyo dumarka yaa u nugul jacaylka ama xiriirka dhankiisa oo kale yaa isdabciya mar walba abwaane ragga iyo dumarka maadaama hadda labadeena aan ka joogno yaa la isdhihi karaa way markaa u jilicsan yihiin ragga xiriirka u nugul yihiin Soomaaliga adaa iga badiyay abwaana tahay Soomaaliga ku hadlaynaa waad mahadsantahay horta barnaamijka weyno dad khabiira iyo dad cilmi sayniska yaqaan iyo qaarta cilmi nafsiga waxa uu baahan yahay mugti sax laakiin adigu waa yahaagi qiyaasmo wixii inagu aynu hadda ka garanayno iyo waxa uu sugo qarni weyn naga horeeyo kama qiyaas karo oo waxyaabo fara badan baa jiro qaabka iyo environment-ka lagu noolaa marka iyo dhaqanka iyo wax badan baa kala duwanaa laakiin hadda kan aynu maanta ku jirno waxaad moodaa inta badan inuu dumarku u nugul yihiin maxaa u sababa marka waxaan maleynayaa horta kulleydii dumarku iyo raggu isku mid ma way ka naxariis badan yihiin صح dumarku صح xogaa ragga way ka naxariis badan yihiin way ka jilicsan yihiin oo qofka markii hada qof rag hada wax weydiiso iyo qof dumar hada wax weydiiso waxa laga yaabaa qofka dumarka doona ku haynin xataa uu naxaya marka alla waa walaalo ma hayo hada naxariis laakiin ku ariyo ma hayna inuu dhaho laga yaabaa صح war dhaqaash socdo marka aan waxaan isleeyahay way ka naxariis badan yihiin waxa sababayaan inay ka naxariis badan yihiin صح marka nuweelkaasi dhankaas ay qabaan oo naxariista ah qalbi jab ama waxyaabo kale oo nafsiyan ah ma u keeni kartaa dumarka وقصب طبعا أرتا قفكم مر حدي ونحريس بدن ياهي واحد كستو دبنا ونقوليه صح ودريمي كرتاو قلبه مر حدي وقف قلبي جلع سنليه عادي دب كانوا ونقوليه حريس تلاوضه ونقوليه عادي markii ay xiriir qofka dumarkii uu sameeyo oo kale xogaa qalbigiisu jiidashada markiiba wax naxariis ku soo dhacaya hadii uu wax yar dareemo oo wixii shalay ku soo dhacay ka bedelan isla markaaba uu isbedelaya uma adkaysan karo marka naxariistana way u nugul yihiin marka dambe uu isbedelay dhibkana aad bay ugu nugul yihiin marka kulli waxa sabab naxariistan ba labadaba sabab oo ma la isdhihi karaa waa gartay marka loo eego dumarka laftirkooda naxariista marka laga soo tago kale si kale isugu dabcinayaan ragga ma la isdhihi karaa oo soo dhawaanshiyaha marka haasawaha lagu jiro kale waxaa ka qaldan qaabkii haasawaha loo mari jiro kale wayga iyaga ay ku soo dhaweynayaan ninka marka u baahan marka hore waxa laga yaabaa gabadha marka xiriir loo soo bandhigto kale inay yani kor isku qaado laakiin marka dambe dhulka ku soo dhacdo taas oo iyaga sabab ma dumarka horta kulli waxa jira hadda dadkii hore iyo dadkan hadda qarnigan hadda inagu ku jirnaa farqi weyn baa u dhaxeeya oo dadkan hadda aynu ku jirno waxyaabo fara badan baa u sababa صح waxa uu sababa waxa la dhihi karaa bar aqoon la'aanta waxa laga yaabaa gabadha iyo wiilku is arkayaan oo is baranayaan waxa laga yaabaa inay ama week wada soconin ama maalmaha ay wada socdaan jacaylkoodu meesha u dambeysay buu gaaray صح oo waxaad is leedahay dadkani malaha 5 sano 4 sano isoo wada socdeen marka waxa uu sababa jacaylku marka hore waan ku rabaa iyo waan ka daranahay ka bilowda barasho kama bilaabanayo yaa tahay xageed ka bilaabataa maxaa tahay reerkiinu maxay yihiin adiga iska bilowo ma jirto waxa laga yaabaa nin baa gabadh baan jeclay ku leeyahay marka gabadhan magaceeda hebla iyo kuma dari karaa beed waa gartay iyaduna sidoo kale wiilka hebel baa lahaa aabihi kuma dari kartay iyaduna marka waxa sabab u ah waxaan bixi ciyaar buu noqday oo wixii markii hore waad aragtay waxa la yiraahdo wax dhirin haweenka iyo galab wala hidaraaco waxa laga yaabaa nin baa gabadh ku raadinaya gabadha hooyadeed yaqaan laakiin iyada ma yaqaan soo xuntahay may gaab may dheer tahay say tahay ma garanay laakiin gabadhi caasha ahayd gabadh ay dhashay uu socdaa marka waa wadan fog buu ga imanayay uu soconayaa laakiin hadda xagee ka timid maxay tahay reerkee ma garanayo waa heblada ma kaga dhig marka waxa qaladka noo keenay oo yani gabdhaha yani qaladka u keenay oo dhibaatadaas u keenay waa barasho la'aanta qofka iyagoona baranin ama ninkii ahaada naagta ahaato ayay iska dhaxgalayaan kadibna dhibaatada halkaas kaga iimaanaysa gabadha qalba jabka horta kulli wax kasta xilliga ay ku sugan yihiin iyo beeyada ay ku nool yihiin bay marka ay matalayaan dadka inta badan maadaama ay Soomaalidu burbur ay soo martay oo dawlad ayna lahayn oo dalal kale ay ku soo qaxeen oo inta badan dadku ay iska qurbo joog bihiin dadka la nool yahay laftirkooda saameyn ku yeelanaysa dhaqanka reer galbeedka oo kale waa la qaadanayaa wadamadii kale dadka kale ama gaalaha ahaada ama islaam ahaade qofka mar haddii aan isku dhaqan ahayn
waxaa laga yaabaa in iyagada laftirkeeda inay taas saameyn ku yeelan karto marka waxaa laga yaabaa gaalada iyo dadka kale waad aragtay iyo dhaqamada kale ee dadka hataa islaamka ee soomaalida ahayn oo kale wax weyn macnaa xiriirku ma laha marka iyaga laftirkoodu inay kaga daydaan halkaa xataa waa loo sababeyn karaa waa tahay marka aan kasoo tagno dhibaatooyinkaas kale dumarka iyagu naxariista iyo jiljileeca iyaga lagu tilmaamo dhanka jacaylka ama xiriirka u nuglaadaan ma jiraa rag iyaga laftirkooda xiriirka u jajaban oo raggi kale kamid ah horta dee isku mid ma aha oo faraheenaba ilaahay ma simin oo dadku bini-aadanka isku mid ma aha oo dadku qof adagna uu leeyahay qof jilicsanna uu leeyahay way jiraan rag badan oo iyaga laftirkooda inkastoona badnayn oo dumarku ay ka badan yihiin haddana waa la helayaa rag yar oo fara ku tiraysa oo iyaga laftirkoodu dumarka u nugul oo jiljilicsan oo waxa ay dareemayaan wax lamid a dareemayo oo iyaga laftirkoodu qaabkan oo iska naxariisa waa la helayaa laakiin ma badna kolley mar kasta dumarka ka badan marka meesha iyagu kontonka ka yihiin iyagu boqolkiiba boqol bay noqonayaan marka fariin aad u reebi lahayd dadka dhalinyarada isdoondoonayo dumarka siiba maadaama abwaan aad tahay fariin ma jirtaa aad kula talin lahayd gabdhaha hadda haasawadoonta ah ama guurdoonka ah waxyaabo ay kaga guuleysan karaan kaga bixin karaan jiljileeca iyaga ay u sameyn lahaayeen ragga horta guurku waa iska calaf oo wax kasta xagga rabbi bay ka qoran yihiin laakiin dardaaran waxaan dhihi lahaa in la isbarto oo horta qofka bini-aadanka horta qofka inaad baratid aad bay muhiim u tahay marka barashada dadku waxay kasoo koobaan magaca lambarkaaga wax dhaafsiisan ma barashada saas ma barashada waxaa lagu qiimeeyaa dadku inta badan waxay dhahaan qofka hadda rabtid inaad baratid ama jid lamar ama jabad la deg ama jidin macnaa qofka markaad safartaan ee aad isla rafaadaan ee isla gubataan qofka fiican iyo qofka xun uu ku kala baxaya aad iyo aad markaad ama meel wada degtaan wada noloshiina hal meel ku kooban tahayna iyadana ugu kala baxaya markuu waxayna dhex maro nolosha bini-aadanku marka wayna dhex marta ee aad isku weel tihiin wax wada cunaysaanna iyadana uu ku kala baxaya marka barashadu ma aha horta waxaa laga yaabaa horta waxaan jacaylka la dhaho waa kasbasho ana qofka adduunka ugu necabta hadduu ku kasbado uu wanaag kuu sameeyo uu maalin kasta ku wado uu soo jiidasho le maalin dambe adaa iska raaciyo marka waxa weeyaan barashaduna aad bay u fiican tahay oo maxaa yeelay haddii qofka aad taqaanid waxaa la yidhi qofka aad taqaanid hal ceeb baad ugu tagtaa qofkaadaan aqoonin 12 ceebood maxaa yeelay dee qofkii maba taqaanid mu xanaaq dhow yahay mu gacan fudud yahay cudurro kale u leeyahay ma garan kartid laakiin qofka aad taqaanid waad dareemi kartaa haddii maanta laptopka halkaad ka qaadido oo caasha ay xanaaqaysa daabaad leedahay marka waad garan kartaa barashadu wax badan bay iyada laftirkeeda ay muhiim ka tahay xagga guurka iyo xiriirkaba marka waxaan dhihi lahaa hala isbarto waxoogaa la xiriirka hala badiyo laakiin yaan la isku degdegin haddii la isku degdego furiinkuna degdeg buu noqon aad iyo aad marka barashadaas la rabo gudaha in la iska barto hadda dhalinyarada ma saaraan diiradda maxaa ugu wacan waxyaabo kaleeto oo ah yacni nuweylka ah in jacayl bowsiisa la isku bilaabo saa sheegtoo kaleeto ah tusaale labada qof oo 7 ber isla socota inay noqdaan dad afar sano isla socda camal jacaylkii badiyaan maxaa dhalinyarada ugu wacan inay hoos iska baran waayaan ilaa waxaa hore loo yiraahday ruuxaad beri ku baraweysid bil kuma baratid soomaalida murtideeda aad bay u fara badan tahay waxyaabo badan lagu dabaqaa maxaa kale arinta niyo arintaas horta waa arrin dhibkeeda leh waxaan maleynayaa waxyaabaha hadda ugu badan ee sababaya iyada ka kow horta wax badan way soo koobmeen adduunku wax badan ba hadda soo koobmay aad iyo aad waqtiga xataa iska soo koobmay oo saacadii iyo minidkii iyo bishii iyo sanadkii wixii way soo koobmeen maadaama oo waqtigu speed ku ordayo oo waxooga aad u maleynaysid dee wax badanna waa la sii sheegay xagga quraanka oo kale macnaa saacadda qiyaamaha wax badan bay soo koobmayaan ana waxaan is leeyahay qaabkan oo wax kasta ay u ordayaan baa lafti barashada laftirkeeda iyo xiriirkiina u ordayaan marka kulley dee waxaan waa wax iska caadi ah oo meel kasta iyo lala qabsaday hadda nolosha dadka aniguma in wacyigelin dheer la sameeyo oo dadka meelo loo furo oo wax la waxeeyo oo dadka laga wacyigeliyo oo qaab dambe iyo isbedel kale iyo ilaahay wax kale keena mooyaan la hadda waxaan is leeyahay anigu barashada lama bedeli karo wasay ku bilaabatay waa tahay waan ku mahadcelinayaa inkastoo aan jeclaa hal abuurkaaga maadaama abwaan aad tahay inaan iyadan wax kaa weydiiyo laakiin oran mahayo waxaa jiro dad fara badan oo dadka markii abwaan la yiraahdo iyo markii fanaan la yiraahdo way kala duwan tahay gabagabada barnaamijkan ku jirnaa hadda abwaan baashi qaran oo kaleeto dadka haddii ay dhahaan abwaan baashi qaran maxaan ku baran karnaa maxay kugu baran karaan oo lagu yaqaanaa oo caan ku tahay tani horta kulli aan wax caan kuma ihi oo ma qaadin horta caanimo maya mira aad sameyso oo dadka aad u yaqaanaan dad inta badan dee fanaaniinta eega kamerada soo fariista laakiin abwaanada sooma fariistaan lama garto soomaha in la sheega maaha marka la soo tabiya maahan marka ma jirtaa heesa aad leedahay oo fanaaniin caana ay qaadeen ama abuur kale aad sameysay oo caan baxay way horta heesa aad ma jecli oo hobbigayga maaha aad iyo aad laakiin way jiraan kulli waxyaabo way jiraan aan maleynayo
caanimada horta qof inuu caan noqdo iyo inuu caan noqon bulshada un baa ama caan ka dhigta ama ka dhigi laakiin waxaa dhici karto hadda heesada sheegto dadka la qaado oo la og yahay aan lagu garanay adina ma way jiraan oo badan waxa kamid ah hees xasan gantaal qaado oo iyo la oo gabdhaha guriga ee lama dhaxlay gabdhaha Soomaaliyeed garowshaha fiican iyo go'aanka lagu gartaa ilka casato qaado iyadana kala baro iga baro dadka la dhaho way jiraan dhaantooyin waxyaabo fara badan baa jira laakiin waxaan maleynayaa kulli barashadu iyo aqoontuba waxba kastaba Ilaahay baa bixiy sax macna qof waxa laga yaabaa isagoo on wax badan aan sameyn baa laga yaabaa in magaciisu dheeraado soo wax badan laga yaabaa in magaciisu loo yahay marka waa iska wax kasta waa iska xaq rabbi bay ka qorayn anigana aad baan ku faraxsanahay inaad maanta channelkayga aad igu soo yani aan kugu casuumo barnaamijkan igala qayb qaadato ugu dambeyn marka maxaad asxaabta uga tagleen maadaama gabagabadii barnaamijkan soo gaarnay waxaan leeyahay Soomaali Maxamed waad mahadsantiin meel kastoo joogtaan inta ma taqaanay inta aan aqoonin baan salaameynaa channelkaas aad bay u mahadsantahay walaasheen ha lagu xidhnaado caasha marka waxaan leeyahay waad salaamantiin meel kastoo joogtaan watahay ana aad baan kugu mahadcelinayaa sidoo kale ana aad baan asxaabta intaas ayaan ku soo koobayaa barnaamijkii gaarka ahaa ee isku talagalay arrimaha bulshada ku saabsanaa dumarka iyo ragga iyo u jilicsan jacaylka waxa igala qayb qaadanayay abwaan baashi qaran inta toddobaadka xiga barnaamijka lamid ah ku kulmi doono mar kale waxaan idin ka codsan lahaa inaad channelka subscribe ku qabataan iyo sidoo kale like iyo share يا لوكال هارين مركلة نبت قليو